waxaan idin siinayaa update-ka xaaladihii ugu dambeeyay ee soo kordhay cudurka COVID-19 waxaa 24 saacadood ugu dambeeyay la helay 34 qof oo positive ah rag waxaa ah 26 haweenna waxaa ah 8 dadka meelaha ay kala joogaan banaadir waxaa jooga 27 puntlandna waxaa jooga 7 dadka laga helay da'dooda marka inta u dhaxayso hadaan qiyaasta idin siino waxay ka yartahay da'dooda ilaa 20 waa 5 boqolkiiba 20 ilaa 39 waa 45 boqolkiiba 40 ilaa 59 waxa waay 32 60 iyo intii ka sareysa waxa waay boqolkiiba 18 tirada guud ee dadka laga helay wadanka cudurka viruska COVID-19 waxay isu gaaraysaa 756 dhimashada waxaa soo kordhay 3 xaaladood oo cusub ilaahay ha u naxariisto tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tagaysaa 35 qof Allah ha u naxariisto waxaa ka bogsaday 17 qofood tirada guud ee bogsatayna waxay isugu tagaysaa 61 mar kale waa inaan ku dadaalnaa haddii ilaahay yiraahdo sidaan u xakameyn lahayn cudurkan in mar walba gacmaha lagu dhaqdo saabuun iyo alcohol qof walba wuxuu heli karo uu ku nadiifsan karo ugu yaraan 20 second iyo ka badan in la iska ilaaliyo meelaha ciriiriga ah iyo fadhiyada badan oo dadka isku dhow yihiin in banaanka bixidiisa la iska yareeyo haddii aysan ahayn muhiim in haddii qofka uu arko calaamadihii cudurka la tilmaamayo markastana la tilmaamo inuu wacdo nambarada loogu talagalay freega ah si loo siiyo wacyigelin loo dhageysto oo ula hadlo qof dhakhtar qofka gurigiisa inuu isku xakameeyo dadka waaweyn cudurrada qaba faafa cudurrada chronic ah qaba in xanaano gaar la siiyo oo aanan loo dhawaanin oo laga ilaaliyo in qof cudurkii looga shakiyo ama qabo uu tago yacni in gacmaha aan la iska salaamin aan la isu haanyoonin la is ilaaliyo waa aad iyo aad ay muhiim u tahay cudurka waa cudur sii fidaya maalin walba ilaahay dhibtiisa ha naga haayo inaan ku dadaalno bulshada meel allaala meeshay joogto in ay diyaar u tahay inay yacni iska xakamayso oo ay dhageysato talooyinka takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ee cid allaale cidii u igman inay ka tala bixiso ama gawaaniso dadka sidii looga hortagi lahaa cudurkan sidaad la socotaan waa bil ramadaan guriga in lagu cibaadeysto in ma aragtay bixidda la yareeyo in mar walba qofka uu ka taxadaro caafimaadkiisa in lagu dadaalo waxaan rajaynayaa ilaahay inuu naga haayo dhibkiisa cudurkan waa idin wada salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu